waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay walaalayaal ummaddeennan qaybteedii hore waxa ay ku hagaageen ee ay ku noqdeen dad ilaahay ku xidhan subxaanahu watacaala inay ahayd alzuhdu waalyaqiin wuxuu rasuulku salaaxu awalu haadihi alumma bizuhdi waalyaqiin ummaddan qaybteedii hore waxa uu ku hagaagay iimaan iyo zuhdi adduunyada inay ka zaahideen oo adduunyadu qalbigooda aanay meel ku yeelan oo adduunyadu fikirkooda o dhan aanay qaadan wayahliku aakhiruhaa bilbukli waalamal ummaddan qaybteeda dambe waxay ku halaagsamaysaa buu leeyay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bakhayltinimo iyo adduunye jacayl iyo amal rajo iyo yididiilo weyn oo adduunyada ay ka leeyihiin qofka ibni aadamkaa rajadiisa iyo yididiiladiisa iyo cumrigiisa waxaa fara badan rajadiisa iyo yididiiladiisa cumrigiisa iyo ajashiisa ayaa ka kooban oo ka sokeeya sidaa awgeed walaalayaal qofka muslimkaahi waa inaanu adduunyadan aanu isku ilaabin hadduu isku ilaabana khaatimadu inay ka xumaato ayaa halis u yahay wuxuu odhan jiray cali bin abi aalib radia allahu canhu waxa ugu daranaan idinka baqaya waa laba arrimood waa itibaacu alhawa wa tuulu lamal inaad hawadiina raacdaan waayo qofku hawadiisa hadduu raaco taasi waxay ka hor istaagaysaa inuu xaqii raaco xaqii oo u cad oo u arko ayaanu dheg u dhigahayn inuu qofku rajada iyo ididiilada adduunyada uu ka leeyahay uu dheeraystaana waxa ay kalifaysaa inuu aakhiro iska ilaabo qofku mar hadduu aakhiro iska ilaabana inuu khayr iyo daacaad iyo wanaag sameeyo way ku adkaanaysaa inuu sharka iyo xumaanta ka dheeraadaana waxa ay noqonaysaa mid aada ugu adag xumaantuna way u fududaanaysaa camalka wanaagsanna wuu ka caajisaya sidaa awgeed addoonka ilaahay shar uu la doono waxaa lagu ciqaabaa bay odhan jireen dadkii hore wanaagsanaa 4 arrimood inay indhihiisu qalalaan oo weligii ilaahay daraaddii aanu u ooyin iyo inuu qalbigiisu qalalo iyo inuu noqdo mid adduunyadan isku ilaaba iyadana dadaalkiisa oo dhan ku bixiya waxaa ka mid a walaalayaal asbaabta keentay inay khaatimadu xumaato suxbatul ashraar dadka xunxun in lala saaxiibo waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu ku yihi xadiidka saxiixa alrajulu calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil qofku wuxuu la diin iyo la dhaqan noqonayaa cidda uu la saaxiibo midkiin ha ka fiirsado oo aada ha u hubsado cidda uu la saaxiibayo waxaa kaloo rasuulku uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam qofku cidda uu jeclaadee uu la saaxiibown inuu meel la tegi doono yowma alqiyaama oo anta maca man axbabta buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam saaxiibkuna saaxiibkiisa raad weyn buu ku leeyahay waxa uu u guraa oo u jiidaa si qofku aanu dhaadahayn waxaa laga yaabaa saaxiibkaagu hadduu wanaagsan yahay xagga khayrka iyo daacad iyo wanaagga inuu ku jiido hadduu xun yahayna xagga sharka iyo macsiyada ayaa uu ku jiidaya arrintaasina waa mid mujarab oo la arkay qofkaoo iimaanle baa laga yaabaa in gaalnimo uu ku dhinto noloshiisu kufri lagu khatimo sababtuna ay tahay saaxiib xun waxaa jira nin la odhan jiray cuqba ibnu abi mucayd ninka caynkaasi ah waxaa dhacday inuu casuumay dadkii qureysheed oo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu ku jiray dabeeta rasuulku markuu gurigiisa soo galay wuxuu yidhi ilaa aad ii rumayso oo qof muslima aada noqoto raashinkaaga cuni maayo u dhowaan maayo dabeetana wuxuu yidhi waan ku rumeeyey bal raashinka iska cun arrinta caynkaasiya waxaa maqlay ninay saaxiib ahaayeen oo ubaya ibnu khalaf la odhan jiray intuu u yeedhay baa waxa uu ku yidhi war waxaan maqlay inaad annaka sabawta diintii aabbayaasha inaad ka tagtay oo inanka yare maxamed inaad raacday baan maqlay dabeetana wuxuu yidhi maye sida arrinku maahee dee nin weyn oo mucadam oo sharaf le baa gurigaygii soo galay markuu yidhi raashinkaaga cuni maayana ilaa aad i rumaysana dee ninku inuu gurigayga gaajo kala tago ayaan karaahiyaystay buu yidhi wuxuu yidhi waar ninow dhegayso wallaahi wejigayga iyo wejigaagu xaaraan bay kala yihiin ilaa aad u tegaysid ninkaa maxamed oo labada indhood candhuuf aad kaga tufaysid halkaa qoortana aad kaga istaagaysid ninkii dabeetana sidii buu sameeyey gaalnimada caynkaasi isagoo ku sugan ayaanu dhintay sida uu leeyahy ibnu kathiir raximahullah fii tafsiirihi ilaahayna tabaaraka watacaala aayadda qur-aanka uu leeyahay wa yawma yacaddu addaalimu calaa yaday yaqulu ya laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila ya waylata laytanii lam attakhid fulana khaliila laqad adalanii can adikri bacda id ja'anii waxaa rabbi tabaaraka watacaala aayadda uu ku soo dejiyey sida aimada qaarkood ay tilmaameen ninkaa waxaa rabbi uu leeyahay xus
maalinta kii daalimka ahaa farihiisa uu qaniini doono oo odhan doono alle hoogayge miyaan rasuulka raaco maxaan hebel saaxiib uga dhigtay waxaa hanuunkii iyo khayrkii wanaaggii uu iga lumiyuu iseejiyey intuu ii caddaaday kadib calaacalka caynkaasina qofka waxba u tari maayo yowma alqiyaama qiso labaad oo bukhaari iyo muslimba ay wariyeen abu taalib odaygii la odhan jiro rasuulka calayhi salaatu wasalaam adeerkii ahaa waxaa dhacday markii sakaraatulmawtka uu ku jiray waxa u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam hase haatee waxaa ag fadhiyo uga soo horreeyey abujahl iyo cabdullaahi ibnu abi umaya ibnu lmugiira oo ahaa laba nin oo gaaladii waaweyneed ee quraysheed bay ka mid ahayn rasuulku isagoo adeerkii la hadlay wuxuu ku uhi yaa cammu qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah adeer waxaad tidhaha laa ilaha ila allah waa kelmad ilaahay agtiisa aan kaagaga doodi doono maalinta qiyaame waxaa dhacday labadii nin inay ku yidhaahdeen abu taalib atargabu can millati cabdilmuطalib ma cabdulmuطalib oo aabbahaya ayaad iska nacaysaa diintiisii oo inanka yar adeerka u tahay baad raaci doonta rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddana waa uu ku celiyey dacwadii iyo baaqii uu ugu yeedhayay tawxiidka iyo islaamnimada iyaguna mar walba waxay ku lahaayeen ma diintii aabbaha baad nici doontaad maanta iskaga tegi adigoo da'daa ku gaadhay ceeb baa kaa raaci doonta dabeetana waxa uu dhinto naftu ay ka baxday isagoo tilmaamaya inuu diintii aabbihii uu ku dhintay bal u fiirso isagoo abu taalib yaqiinsanaa diinta nebi maxamed inay xaq tahay haddana tawxiidka inuu ku dhawaaqo asbaabta u diiday waxaa ka mid ahayd saaxiibadaa xunxun ee ag fadhiyey ee shirkiga iyo gaalnimada u qurxinayay ha la iska ilaaliyo markaa saaxiibada aan wanaagsanayn waxa uu yahay arrinka kale ee aynu kusoo gebagabayn doonaa biidni illaah tacalluqu alqalbi bigayri illah qofka qalbigiisu hadduu ku tacalluqu ku xidhmo cid aan ilaahayn subxaana wa tacaala qofkaasi wuxuu halis u yahay inay khaatimadu ka xumaato waayo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay quluubtu waxa ay ku xasisho ay ku xoogaysataa inuu yahay ku xidhnaanta ilaahay iyo ilaahay xuskiisa aladiina aamanuu watatma'inu quluubuhum bidikri illah alaa bidikri illahi tatma'inu lquluub ilahay wuxuu leeyahy kuwa mu'miniinta ee quluubtoodu xuska ilaahay ku xasisho xuska ilaahay bay quluubtu ay ku xasishahay qalbigu wuxuu ku noolaadaa oo inuu sugnaado keensato marka qofka naftu ay ka baxayso inuu ilaahay ku xidhan yahay haddiise qalbigu shay kale uu ku xidhmo ilaahay uu ka jeeso subxaana wa tacaala adduunye uu ku xidhmo adduunyadu ay ku weynaato qofka khaatimadu inay ka xumaato ayaa arrinkiisu u dhow yahay waxaa dhacday nin inuu isu arkay inaanay nolole aanay u laabnayn oo sakaraatulmawtkii uu ku jiro dahab iyo xoole wuxuu haystay buu soo ururiyey iyadoo cidina aanay la joogin ba wuxuu la hadlayaa dahabkiisii oo wuxuu leeya yaa xabiibi yaa man afnaytu fiika cumri amuutu wa atrukuka ligayri kii aan jeclaayow kii cumrigayga aan ku dhameeyeyow ma waan dhimanayaa oo cid kale iga kaa hadhaysa oo cid kale ayaan kaaga tegayaa ku dhexlaysa saliidna halkan uu soo dhigtay marba intuu soo qaado gobol yaroo dahaba ayaa saliiddaa intuu geliyo uu liqaya siduu dahabkiisii u liqliqaayey ee uu tilmaamayay inuu yahay kii uu jeclaay noloshiisa uu ku dhameeyey iyo cumrigiisa ayaa naftu ay ka baxday bal u fiirso qofkii qalbigiisu adduunye uu ku xidhmay ee ilaahay iska ilaabay subxaana wa tacaala sida waxa weeyaan khaatimadu iga xumaatay waxaa kaloo imaam alqurtubi uu tilmaamaya raximahullah kitaabkiisa la yidhaha atadkira biaxwaali almawta inuu jiray nin mu'adin ahaa oo u bixi jiray minaaradda masaajidka si u eedaamo deetana maalin wuxuu arkay guri qolo kiristaani ay lahaayeenoo masaajidka ka hooseeyey gabadh waxa weeyaan halkaasi joogta inta uu eedaankii iska daayo oo uu daadegay buu gabadhii u tegey waxyaaba markaa uu kala hadlay waxaa ka mid ahaa inuu guursado waxay tidhi waad og tahay inaynu kala diin nahay aduu muslim baa tahay annaguna kiristaan baanu nahy aabbahayna ogolaan mayo adigoo muslima inaad waxa weeyaan i guursatid waxau idhi dee waaban kiristaamobi doonaaba si aan kuu guursado qalbigaygiiba adiga ayaa qaatay dabeetana waxaa dhacday inuu millad iyo diintii ka baxay ninkii mu'adinka ahaa ee khayrkii wanaaggii cibaadadu ay ka muuqan jirtay waxaa dhacday in gabadhii sidii lagu siiyey wuxuu leey imaam alqurtubi raximahullah maalintii arrintaasi ay dhacday lafteeda ee uu ridoobay ayaa waxaa dhacday inuu guriga dushiisa u baxay dabeetana halkaa inta uu ka soo dhacay qoorta uu ka jabo naftii halkaa ay kaga baxday falaa huwa biha walaa huwa bidiini diintiisina faramadhnaam isagoo ka taagan buu dhintay gabadhii waxa weeyaan diinta uuga baxayna
isagoon helin ayaa naftu ay ka baxday. waa khaatimo xumo weeye. sidaas oo kale waxa aimadu ay tilmaamsay ibnulqayim oo kale ninkii gabadha khiyaameeyey ee inta ay meel weydiisay gurigiisa u tilmaamay ee dabeeta albaabka hoosta uga soo xidhay ee markay tidhi alaab inoo raadi ka bax iyadoo albaabku uu furan yahay ee gabadhii ay iska baxday ee qalbigiisa oo dhami gabadhii uu raacay markii naftu ay ka baxaysay ninkaa in lagu yidhi hebelo waxaad tidhaa laa ilaaha ila allah. dabeeta hadalkiisu uu noqday uun ayna atariiqu ilaa xamaami alminjaab. waa hadalkii gabadhu ay ku tidhi halkeebaa loo maraa meesha la dhaha xamaamu lminjaab. hadalkii gabadhu ay ku tidhi gabadhii qalbigiisu uu raacay ee ilaahay uu uga jeestay qalbigiisu hadalkii unbuu ku celcelinayay. markaa qofka qalbigiisu hadduu ku tacalluqo uu raaco oo uu la weynaado cid aan ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala inay khaatumadu ka xumaato ayaa isaguna halis u yahay. ilaahay tabaaraka wa tacaala khaatumada haynoo wanaajiyo. waxaa walaalayaal inala gudboon inaynu ku dadaallo asbaabta keenaysa inay khaatumadu inoo hagaagto oo aynu kaga hadli doonno insha allahu tacaala muxaadarada soo socota. aynu ka digtoonaano aynu iska ilaalino inay geeridu inoo timaado iyadoo xaalad xun oo ilaahay raalli aanu ka ahayn aynu ku sugannahay. ilaahay tabaaraka wa tacaala dembigeenna ha dhaafo, khayrkii wanaaggana hayna waafajiyo. wallahu aclam, wa sala allahu calaa nabiyina moxamed.